laakiin su'ugo maqaalkaaga koowaad iyo maqaalkaaga boqolaad isku mid maaha. galab wanaagsan dhammaantiin dhalinyaro waa idinla faraxsanahay maanta oo ku faraxsanahay in aad soo gaarteen marxaladii ugu dambeysay oo aad tababarkii aad kusoo xirteen. shahaada qaadanaysaan sax, laakiinse shahaadadu ma aha meeshii aqoontii ku dhammaanaysa ma ahan. wax fara badan la idin baray, waqti dheer la idin soo geliyey, macallimiin fara badan iyo xog fara badan urursateen oo aad qaadateen. hadda kadib marka waxbarashada hadda idin bilaabanaysa furihii gacanta idinku siiyey. ha isdhihina aniga aad iyo aad u fahmi karaa dhalinyarada markii ay shahaado qaataan waxaa laga yaabaa inay ka dhaadhacsan tahay cilmiga waa dhamaysamee ama maaragtay aqoontaani shahaado waa ka qaadatay. laakiinse haddii runta laga hadlo yani safarku hadduu bilaaw idin yahay hadda kadib inaad bilaawdaan waaye waxbarashadii inaad adiga wax isbartid. marka wax weyn aa idinkaga fadhiyaa, waxaa la dhahaa burka cuntay bootintiisa laga rabaa. marka maadaama wax fara badan la idin baray maaragtay hadda raba inaad soo celisaan. marka hal idinka arko qoraalkiina hal arko, farsamadiina hal arko, fankiina hal arko. ani waxaan aaminsanahay qoraalku inuu ka mid yahay xirfadaha oo maaragtay farsamada camal ah. qoraalku waa xirfad, waa skill, waa farsamo waaye. xirfadna waxay u baahan tahay si aad u sugtid, waxay u baahan tahay ku celcelin fara badan ay u baahan tahay. hadda canjeerado kale inaad dubtid kow markaa baranaysa maalmihii ugu horey oo baranaysa ama waalidka uu ku tusaayay sida canjeero loo dubo iyo dhowr sano kadib canjeerada aad dubto isku mid maaha, way kala qurxoon yihiin. baaskiilka waxaa laga yaabaa marka ugu horeysa inaa la dhacdid, inaa kuftid, inaa muruxdid, inaa baaskiilka laftiisa jabisid, taasaa dhici karto. laakiin waqti ka bacdi markaa ku celcelisid waxaa laga yaabaa marka baaskiilka inaa gacmadays ku wadid. waxaan ula jeedaa qoraalka farsamo waa skill, waa xirfad, waa ku celcelin fara badan u baahaya. marka aad haddii aad u celcelisid marka dambe waxaa kusoo baxaysaa qatara kusoo baxaysaa marka dambe yani qoraalkaaga uu fiicnaanaya. marka anigu waxa aan idinkula talinayo maanta waxay tahay aqoontii la idin siiyey isticmaala, maaragno practice fara badan sameeya, ku celceliya. marar fara badan waa u sheegaa dhalinyarada markaan la hadlayo, gaar ahaan blog writing-ka markii laga sheekeynayo. marxaladda koowaad qoraaladaada ugu horeeyo adi xataa ma jeclaysanaysid. waxaa laga yaabaa inaa yastid, inay si kale kula ekaadaan, inay kula qurxonaan waayaan. laakiin su'ugow maqaalkaaga koowaad iyo maqaalkaaga boqolaad isku mid maaha. sawirka koowaad waa qaadid iyo sawirkaaga kontonaad isku mid maaha, isku tayo maaha. marka hadaalina ku celceliya, hareerihiina maaragtay fiiriya. waxyaabo fara badan oo wax laga qori karo ka buuxa bulshadeena. marka environmentiga iyo deegaanka ku nooshaha fiiri, dadka kula nool fiiri, duruufaha fiiri. uma baahanid xataa imagination fara badan ama mal-awaal fara badan uma baahanid. maalin kasto waxyaabaha maaragtay oo kaa hor imaanayo iyo waxyaabaha arkaysa iyo waxyaabaha la kulmaysid waxaasaa qoraal ka samey kartaa. marka kaliya idinkaad waxaa u baahan tihiin wixii inaad farsamo ahaan inaad si fiican usii barataan, fan ahaan inaad sii barta, inaad fanaaniin noqoto inaad idinka rabaa. mar kale waa ku faraxsanahay inaad tababarka dhamaysateen. waxaan idin rajeynayaa guul. waxaa laidinka rabaa inaad noqotaan kaa bartay kaa badiyey, dadkii macallimiintooda ka fiicnaada. waa mahadsantiin.